Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada shabakada Kobciya Media iyo Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Yuusuf. Chapterkii koowaad qeybtiisii labaad waxaynu kaga hadlaynaa maanta input device. Input device waa maxay? Waa qalabyada computerka wax soo geliya. Shaqooyinka dumarka waxaa weeye translate data inay xogta ay kasoo xambaaraan from the human understanding human being bini'aadanka ama cidda soo gelinaysa in ay xogta kasoo xambaaraan form body data from human being macnaha bini'aadanka kasoo qaadayaan qalabyada kasoo qaadayaan qaabkay usoo qaadayaan waxay usoo qaadayaan xogta form body form ama qaab ay humanku understand ay fahmi karaan oo computerka ay soo dhexgelinayaan macnaha waxa weeye waa qalabyada computerka xogta banaanka kaga keena iyagoo usoo xambaaraya form ama qaab bini'aadanku ay fahmi karaan. Inta badan waxa ugu caansan qalabyada computerka wax soo geliya labada qaab oo la kala dhaho keyboard iyo mouse. Labadaas ugu caansan. Keyboard waa kan oo wuxuu soo geliyaa wixii text ah. Wuxuu soo gelinayaa isagu wixii text uu soo geliyaa. Isagu wax kale ma soo geliyo. Mar waa jirtaa uu sawir qaado oo computerka sawir geliyo. Laakiin sawirka uu gelinayo waa sawirka loo yaqaano screen picture macnaha shaashadda inuu sawir ka qaado. Meesha computerka mobilka uu screenshot ka qaado. Kan marka waa maxay? Waa selector. Selector macnaha waa maxay? waa device-ka loogu talagalay inuu control gareeyo the movement of computer dhaqdhaqaaqa computerka oo dhan. Okay? Tusaalayaasha ayaan rabnaa si fiican uga dhargeynaa. Qeybta koowaad waa maxay oo qalabyada computerka wax soo xareeya tusaalayaasha maxaa kamid ah number 1 keyboard baa kamid ah. Muxuu qabtaa? Typing text qoraalka ayaa lagu qoraa. Macnaha waa qalabka qoraalka lagu qoro oo documentiga lagu diyaariyo. Tusaalaha labaad waxaa kamid ah mouse oo ah qalabyada ugu muhiimsan wax soo xareeya. Waa control wuxuu maamulaa screen elements. Wuxuu maamulaa screen element macnaha screenka wixii saaran. Waxyaabaha screenka dul saaran ayuu maamulaa. Wuxuu kaloo kamid ah input device-ka scannerska. Scannerska waa maxay? Hard documentiyada adag wuxuu u bedelaa soft. Wuxuu cagsi ku yahay printerka. Sababta printerku isagu wixii soft ah buu hard u bedelaa. Kan laakiin wixii hard ah buu soft u bedelaa. Baasaboorada markii la saarayo scanner baa loo isticmaalaa oo soft loo bedelayo. Okay, pre-storage devices baa jira. Qalabyada macnaha banaanka ku kaydiya xogta. Waxaa kamid ah CD-ga, waxaa kamid ah flashta. Qolyahaas maxay noqonayaan? Waa qolyaha qalabka xogta computerka banaanka uga keena oo usoo xambaara. 5 waxaa kamid ah optical mark recognition oo waa maxay? Waa qalabyada light-ka ku shaqeeya. Masalanba light pen oo kale. Light pen waa maxay? Waa qalinka inta badan light-ka ku shaqeeya. Tusaalaha qalin quraanka oo kale ardayda quraanka markay ay dhiganayaan ardayda dugsiyasha hoose qalinka quraanka oo kitaabka marka la saaro hadla. Waxaa kaloo kamid ah barcode scannerska. Waa maxay? Waa qalabkan supermarketyada isticmaalaan oo caano booraha iyo daasadaha iyo qalabka macnaha sidana markay akhriyaan bareyska sheegaya. Kuwaasna waa maxay? Waa input devices baa loo yaqaanaa. Waxaa kaloo kamid ah input device microphone. Qalabyada wax soo xareeya computerka waxaa kamid ah microphone. Microphone waa maxay? Waa microphone-ka lagu hadlo. Muxuu soo xareeyaa? Wax kale ma soo xareeyo. Wuxuu soo xareeyaa codka computer macnaha wixii cod ah oo computerka ku soo xareeya. Sidaa darteed waa microphone waxa loo yaqaano. Okay, waxaa kaloo kamid joystick waa maxay? Waa shokaanta masalanba haddaad game ciyaarayso oo kale meesha shokaan ahaan loo wareejinayo gawaarida oo kale adigu baaskiilka oo kale adigu waa wixii gacan ah oo la qabsanayo markii la rabo in movement la sameeyo. Marka waxyaabahaas maxay kamid yihiin sawir ahaan haddii aan aragno waa kuwaas mid walba muxuu yahay? Kan waa maxay? Waa mobilkii oo bounty leh oo wax lagu sawiri karo. Trackballkii, mouse-kii, kaameradii wixii oo dhan waa maxay? Waa qalabyada inta badan xogta computerka banaanka uga keena. Sawiradii marka waxyaabahaas oo kale kamid ah. Waxyaabahaas oo dhan marka maxay noqonayaan? Halkan hadii fiirino kana kamid ah input. Inta kale waa output iyo storage. Hadii kan oo kale input kan mayna gaarin waa output. Kan oo kale waa kaydiye mayna gaarin. Kan waa kaydiye. Kan waa maxay? Waa processorkii. Kan waa maxay?
waa shaashadii. Marka sidaynu halkan marka ka fahanay waa maxay? Waxaynu fahanay input deviceska iyo qaybuhu u qaybsamo. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad la socotaan qaybta xigta oo chapterka koowaad, qaybta saddexaad oo insha Allah aanu kaga hadli doono output device, qalabyada banaanka xogta uga soo saara computerka. Waa Ustaad Xasan Maxamuud oo idin salaamay leh waqti wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. La socda casharka saddexaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.